waxaan sharxi doonaa qaybta dhakhtarka. Marka qaybtan dhakhtarka waxay ka kooban tahay qaybtan patient uu ka arki karo dhammaan bukaanada uu ka arki karo. Sidoo kale qaybtan maxay ahayd consultations uu ka arki karo. Tusaale dadka maalintaas bukaan socodka isaga u jooga uu ka arki karo. qaybtan uu ka arki karo dadka admissionska ama dadka u jiifa bukaanada u jiifa ka arki karo. qaybtan ugu horeyso waa consultationska. Tusaale maalin walba dadka ku soo booqda maxay ahayd nambarkaaga soo jirta halkaan ka arki doontaa. Marka waxaan rabnaa hadda tusaale qofkan inaan u shaqeyno. maalin walba waxaad ka dooran kartaa halkan taariikhda halkaan ka dooran doontaa si automatic maalintaas ku saaran. maalintan meeqa tikida ku taala meeqa number hal number. qofka ugu horeeya waa number 2. marka qof walba soo u shaqeyn doonta. qofka marka u shaqeysata halkaan uu ka bixi doonaa oo live-ka qaybta history uu tagi doonaa. maalin walba waa sidaas. marka hadda qofkan aan u shaqeyn. qofkan hadda Cabdi Faarax la yiraahdaa waa u wacday Cabdi Faarax iima waa dhahday. Cabdi Faarax u shaqeynaa marka number 1 uu wataa. Cabdi Faarax waxaan leenahay open consult halena qofkan consultationkiisa aragno. waxaa qaban kartaa marka shaqooyinkan qaban kartaa ko allergy horta qofkan haddii bukaan oo systemku u yaqaan uu yahay oo allergy waxyaabaas uu qabo halkaan ka arki karnaa. vital hadduu jiro qofkan haddii waxyaabo hor loo qorto dhererkiisa miisaankiisa waxyaabaas iyo systemka loogu qoray halkaan ka arki karnaa. qaybtan soobka waaye qaybta SOB-ga qofka halkaan ka gelin kartaa waana muhiim qaybtan adoo waxba ku qorin qofka ma diri kartid ama hooyis uma dhameyn kartid. subjective kan waxaa la yiraahdaa qofka waxyaabo uu ku sheego waxyaabo ka caawin doona madax xanuun zaid ay waxaas ama aad ku qoran kartaa. halkaan waxaa la objective waxyaabo adiga ka aragto qofka halkaan ku qoran kartaa tusaale waxyaabo isaga markaas kaaga muuqda ama waxyaabo baartay. assessment waxaa is leedahay waxyaabahan isagoo kuu sheegay waxyaabaha adiga ka aragto way keeni karaan halkaan gelin doontaa. kadib balaanka waxaa is leedahay qofkan uu u baahan yahay balaanka halkaan gelin doonaa tusaale test u dirno kadib daawooyinka aan siino. marka waxaana muhiim ah kaliya hal mid kamid ah hadaa gelisid oo kugu filan tahay ama hal mid kaliya ku calaamaysan kartaa inaan ku calaamaysta loogu talagalay. xogtiisa gelin doontaa tusaale qofka wuxuu kuu sheegay inuu madax xanuun zaid hayo kuu sheegay. halkaan objective aa lahaa waxyaaba aad ka aragto waaye muhiim ah inaan waxaan wada buuxiso. dad badan haddii ku joogaan kaliya kana kugu filan. haddii aad u baahan tahay qofka waa iskaga sii buuxsan kartaa objective waxyaaba aad ka aragtay waxyaaba is leedahay waxaan way keeni karaan iyo balaanka. flow update haddii qofkan aad leedahay waqtiyo la soo laabo waqtiyo ka gelin doontaa. kadib waxaad leedahay sign in note save draft aad jirto laakiin sign in note aad samayn doontaa kan iska daa sign note saxiix. sign note ka markaa saxiid waa gelisay qofkii wax kale ka taaban karta malaari doonli waaye. halkan waxaa yaala vital waxaa la yiraahdaa qofka inaad ka cabirtid tusaale haddii ka cabirtay blood pressure-ka ama dhererkiisa waxaas ka cabirtay halkan aad gelin doontaa dhammaan baaritaanada inta ku yaala. sidoo kale haddii marka aad dalbanaysid tusaale dalabku wuxuu yahay tusaale waxaad rabtaa qofkan inaad farmashiga u dirtid uu daawo soo qaato u baahan tahay ama daawo u qaato ama waxaad rabtaa qofka test u dirtid lab test inaad u dirtaa u baahan tahay. tusaale waxaa leedahay labka aadniho waxaa soo qaadataa malaria test malaria iska soo qaad malaria halkan ku leedin doontaa malaria ku dhufan doontaa node yar hadda u raacinayso qofkan degdeg ha loogu adeego wax noocaas camal hadda u raacinayso. haddii laba shay jirto tusaale lab test halkan jira waxaan rabnaa inaan sidoo kale lab test kala ka qaadno oo ah typhoid ama tifo. shay walba halkan ku raadin doontaa typhoid halkan qofkas ku soo bixi doona. hadduu link ka dheeraado waxaad samayn kartaa saas oo soo riixi kartaa muuska oo isticmaalayo midka u baahnay waa ka saari kartaa halal xabaasan ugu saari kartaa dulsa ugu saari kartaa. haddii linku ku dheeraado soo kale midkan loo soo dari kartaa. marka tusaale qofkan hadda waxaan u direynaa labka u diri doonaa malaria tifo waxaa loo soo shaqeyn doonaa waxaa arki doonaa marka resultiga qofkaas loo soo geliyo systemka loo soo geliyo halkan ka arki doonaa. marka sidaan wada u xareynayaa maxay ahayd dalabkii aan dalbanay qofkaas loogu xareeyay. marka warqadan aad qofka siin doontaa si uu ula tago qaybta reception-ka. warqadan aad siin doontaa warqad waxaa ku qoran medical order ID oo muhiim u ah qofka reception-ka. marka intaan aad siin doontaa warqadii qofka qaadana wuxuu aadi doonaa meeshuu aadi doonaa. halkan waxaa ka arki kartaa resultyada tusaale haddii qofkan malaria u dirtay haddii laga soo baarin laga soo helay laga soo helin intaa ka arki doontaa. history qofkan hadduu history lahaa hore uu qofkan isbitaalka usoo booqan jiray halkan ka arki kartaa. waxaa jirta summary-giisa qofka inaad u diiwaan gelisid halkan aad ka qabatid aad dhahdid qofkan wixii aad ka baartay waxyaabihii dhan inaad daawacdeed u baahan tahay ka daawaci kartaa. waxaa la yiraahdaa patient summary la yiraahdaa halkan ka daawaci kartaa. waxaa soo jeedid soobkii halkan yaala maxaa qofkan inuu madax xanuun zaid sheeganaya ka qortay objective assessment ma jirin waxaa u dalabtay qofka malaria iyo waxaa u dalabtay tifo waa u dalabtay resultyadii dhan halkan ay ka soo muuqan doonaan. waxaa sidoo kale jira qofka haddii qofka kadri uu yahay qofkii oo qof u baahan hadduu yahay ii sheeg maxay ahayd in la seexiyo hadduu yahay waxaa leedahay tagaliis ma waleesid qaybtan admida leedahay
waxaa leedahay qofkan hala siixiyo marka warqadiisana waa siin doontaa qofka sariirta u rabtid VIP mise normal iyo hala siixiyaa leedahay qofkan emergency elective maternity waxaana dooran doontaa kadib reasonka aad u siixinaysaa sheegi doontaa samida leedahay kadib qofka receptionka soo aqbali doona sidaas wuxuu noqon doonaa bukaan ku jiifa haddii uu qofka qof caadi ah shaqadiisa u dhameys uu yahay complete aad doontaa marka complete tan aad sidoo kale qofkan bal u dalabno daawna u dalabno tusaale waxaa leenahay medication lab test yaa leedahay halkan lab test marka maya waxaa leenahay medication waa daawadii kadib itemkii halkan ka dooran doona tusaale waxaa leenahay qofkan insulin u baahanna insulin hala siiyo insulin 500 mg kapsulka ah meeqa kapsul la siinaa marka tusaale 10 kapsul hala siiyo halkan waxaa yaala marka waxyaabo kale muhiim ah jira waxyaabo warqada ugu qori jirta halkan ma soo gudbin tusaale dosage qofkan maxay ahayd soo qaadanaa hal tablet laba tablet half tablet mu qaadanaa kapsul mu qaadanaa 5 ml muxuu ka qaadanaa shaygan halkan ay gelin doontaa tusaale hal tablet qofkan laba tablet aan dhahno maya aan dhahno hal kapsul qofkan frequency soo qaadana maalintii hal jeer mu qaadanaa wana sidii miya maalintii laba jeer mu qaadanaa saddex jeer mu maalintii qaadanaa hal jeer mu afar jeer mu maalintii qaadanaa waxay dhan gelinaysaa 8 saac mu qaadan doonaa ii sheeg 6 saac mu qaadan doonaa markuu seexanayo mu qaadan doonaa muxuu qaadan doonaa asnidid sidii ay u rabtid mu qaadan doonaa halkan haddii marka wax meeshan ay ka weysid noodkana mar walba raaci kartaa noodkana qoraalka doonto ku qori kartaa sidoo kale waxaa jira qofkan daawada inuu wadaa tusaale waxaad doorato maaha 8 saacadood doorato 8 saacadood hal mar aad doorato qofkan meeqa daawada uu wada tusaale 6 maalin ha wada leedahay wuxuu qaadanaa afka gacanta inhalation miya wuxuu qaadanaa elective ka qaadanaa wuxuu qaadanaa ii sheeg maxay ahayd wax la cunaa miya wax noocaas camal inta ka dooran doonaa marka rootkaad wax iska dooran doonaa ii sheeg videogan iska dooranaya noodna waa raacinayna noodka marka mar walba waxaa muhiim ah noodka waxyaabihii aad ka weysay aad gelin doontaa haddii daawo labaad u baahan haddii medication insulin bisa xareer daawo labaad u baahan daawo labaad kalkan aad xareer kartaa kiyad waxa waaye medication kan waxa waaye insulin medication kala xareyn doonaa waxaan leenahay albendazole tablet ku karaba qofkan laba tablet waaye frequency-ga waxa waaye twice daily halkan aad ka gelin doontaa mar walba marka hore halkan aad ka gelin doontaa kadib waxaan leenahay 5 maalin aan dhahno marka mid walba inaa xariisida waajib ku ah mid walba kamid ah xogta meesha ku qoran inaa xariisida si wixii si nadiif ah u muuqdaan tusaale qofkan bukaanka heli kartid 6 bilood ka hor maxaa siisay inaa halkan ka heli kartid issue order leedahay halkan issue order marka halkan tiraado qofkii waa loo dalbay halkan kaaga muuqato samiriga hadda ku laabano tusaale samiriga hadda ku laabano waxaan samaysanaa samiriga hadda ku laabano waxa uu jeedaa qofkan order loo dalbay dhamaan dalbada insulin 500 mg hal kapsul 8 saac walba la siinaayo kana u dalbnay sidoo kale malaria tifo u dalbnay qofkan marka waxay noqon kartaa in malaria tifo jawaabteeda la soo helo kadib uu qofka u shaqeeyo kansal aan ka dhigi kartaa oo daawici kartaa marka qof walba inuu daawici isku day qofkii si uu ula tago reception-ka si uu fududaato hawshan inuu fududaato tusaale hadda kan waxaan rabnaa orderkan oo medication-ka ahaa insulin-ka ahaa waxaan rabnaa inuu daawano printi aan leenahay warqadii u soo baxdaa siin doonaa intaas ku egtahay qaybta bukaan socodka bukaan jiifka aad tagno bukaan jiifka waa la mid wax hadda ugu duwan tahay oo gooni ama jirtaba waxaa waaye kaliya dadka kugu jiifa history waxaa ka arki kartaa dadka hore kugu soo jiifta halkan ka arki kartaa taariikhi waxaa dadka fiirin kartaa halkan waxaa ka arki kartaa dadka hadda kugu jiifa kan hadda dadka kugu jiifa kan qofkan jiifa sariirta wuxuu jiifaa VIP duu jiifaa halkan ka arki kartaa marka boqos daba baahanta sariirtu jiifa halkan ka arki kartaa qofka waxa la yiraahdaa Ahmed Guuleed waqtiga soo jiifina waa kan waqtiga marka open aan leedahay maxaa qaban kartaa marka inta sidii hore camal waaye vital inta waxa ku dar kartaa qofka hadii waxa ka qaaday dhererkiisa miisaankiisa waxna sama marka inta way ku anfacaysaa qofka caawa waxa ka qaaday isheeg temperature-kiisa waxyaaba caawa ka baartay habeen dambadan waa baari kartaa habeen ku shaqeey waa baari kartaa xogeeyna inta ka soo muuqanaa qaybtan note waaye note qofkan uu qorto darabtid note jaasaan ku qoray waxyaaba tusaale waxa uu weyn waa ka heshay hadii jiraan waxyaaba uu ku sheegay isaga laftirkiisa waxyaaba afkaasha tusaale caawa zeeda wax nuusan camal u tahay caawa zeeda wax nuusan camal u tahay halkan ay gelinaysaa objectives jira waxyaabaha adiga ka aragtay assessment-iga saada soo sheegnay waxa waaye waxyaaba isleedahay waxyaaba way keen karaan mar walba marka wax hal mid ah ku filan kadib waxa leedahay sign aan leedahay mar walba sign-kaas marka dhahdid arki doontaa in progress note-ka Dr. Ahmed soo xiriyay 29 July 3 saac iyo 16 daqiiqo habeenimo waqtigan aan leeyahay waxa waqtigan aan soo xiriyay marka waqti wuxuu ku sheegay listigan dheer mar walba ku soo qoran doona inta order waa maxaa u dalbay qofka jiifa maxaa u dalbaysaa waxa u dalbaysaa tusaale arna in daawo u qaato daawada halkan ka dalban doona wadada waxay mari doontaa qofka bukaan socodka ee mari jirta qaybtan labka resultada labka inta ka arki doontaa tusaale hadii lab au dadka qofkan malaria laga soo baaray shika laga soo baaray kulli halkan ka arki doontaa aad u maasna doctor qaybtiisa waa intaas